qariirada Soomaaliya iyo Itoobiya. waa laba dal oo daris ah laakiin xiriirkooda ma ahan mid degan. Soomaaliya iyo Itoobiya waa laba dal oo fac weyn leh balse mar joogta uu dhex maro. dagaalkii 1977 ogaadeen waar 1977 dagaalkii ogaadeen wuxuu ahaa isdifaac qarannimo. Soomaaliya waxay u dagaalantay dhul Soomaali degto, Itoobiyana way diiday. xabad joojin iyo nabad la'aan 1988 waxaa lagu dhawaaqay xabad joojin balse nabad rasmi ah weligeed lama gaarin sababo jira awgood. Faragelinta Itoobiya ciidamada gudaha Soomaaliya. Itoobiya waxay ciidamo u dirtay Soomaaliya marar badan ayadoo marmarsiyo ka dhigatay nabad dhalin. Shacabka Soomaaliyeed waxay u arkeen duulaan iyo qaran dumis. Diblomaasiyad la'aan. inkasta oo madaxdu mararka qaar kulmaan haddana wax heshiis ah lagama gaaro arrimaha muhiimka ah. dareen kalsooni la'aan ah ayaa xanibay horumarka. biyaha iyo xaduudaha webiyada Shabeelle iyo Jubba waa lafdhabarta muranka cusub. Itoobiya waxay rabtaa inay biyo xireen samayso. Soomaaliyana waxay u aragtaa halis qaran. dadka labada dhinac shacabka labada dal way wada ganacsadaan, qoysna way wadaagaan. Soomaalida Itoobiya waxay la mid yihiin Soomaalida kale, dad isku diin, af iyo dhaqan ah. fursad cusub, deked iyo ganacsi. maanta Itoobiya waxay raadinaysaa deked. Soomaaliya waxay haysataa xeeb dhererkeedu yahay 3.3 kiiloomitir. tani waa fursad haddii la is aamino. mustaqbal rajo iyo dhalinyaro dhalinyaradu waxay rabaan xasilooni, horumar iyo waxbarasho. qarnigan ma ahan waqti dagaal, waa waqtigii darisnimada wax lagu dhisi lahaa. gunaanad daris laakiin isma dhaafno. daris laakiin isma dhaafno. hadalkaas ha dhammaado. waxaa la joogaa waqtigii Soomaaliya iyo Itoobiya u rogi lahaayeen murankooda midnimo.